Salaamullah saaxiibayaal. Maanta waxaan ka sheekayn doonaa sidee Bakistaan ku noqotay waddanka keli ee Muslimka ah ee haysta hubka nukliyeerka iyo sababtii ku qasabtay samaysashada hubka waxkumaada. Fadlan nagu soo biir muuqaalkana like saar, aragtidaadana nagula wadaag kommentiga. Colaadda u dhaxaysa Bakistaan iyo India waxay soo bilaabatay sanadkii 1947 markii uu dhammaaday xukunkii Ingiriiska ee gobolka. Kala go'aas wuxuu ahaa mid dhiig badan ku daatay, iyadoo loo qaybiyey dhulweynihii Hindiya la isku oran jiray laba qaybood iyadoo lagu saleeyay diinta ay dadkaas kala haysteen. Dad badan ayaa ku dhintay qax iyo rabshado dhex maray dadka Muslimiinta ah iyo kuwa Hinduuga ah, waxaana halkaas ka dhashay muranka gobolka Kashmir oo ilaa maanta ah unugga colaadda.